بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعن wanaagsan daawada ku soo dhawaada channelkeena kulmiska wararka qodobada maanta ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona maxaa ka soo baxay kulankii xalay dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo beesha galmah Yunis kadib cabasho ay ka muujeen hanaanka loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir qodobo badan ayaa ka soo baxay waa in la wadaagi doonaa shaki badan waxa uu hareeyay kulanka maanta ee baarlamaanka Galmudug ay ka yeelanayaan xildhibaanada baarlamaankaas muddo kororsiga loo sameeyo madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor wararkii ugu dambeeyay maqli doontaan shakiga kulankaasi hareeyay ma qabsoomi doonaa waa is weydiinaya waxaan kaloo idin soo gudbi doonaa dood adag ayaa maanta ka taagan shirka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maalintiisii labaad galay waa la soo gabagabeyn doonaa maanta qodobada maanta miiska saaran iyo dhinacyada dooda ay wataan ayaa soo kala maqli doontaan waxaan kaloo idin haynaa militariga Soomaaliya waxa uu la wareegay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaa kaloo barnaamijkeena ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay qarax ismidaamina oo xalay ka dhacay gobolka Sanaag ee maamulka Puntland qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warar kale inuu soo kordha marka hore haddii aad tahay saaxiib nagu cusub waxaan ka codsanayaa inaad channelkeena subscribe saarato galbeedkana furato una share galayso saaxiibada Ameerika si joogan adigoo commentiga like-na inuu reebaya aad baad u mahadsantihiin aan ku bilaawno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay fila Soomaaliya kula kulmay siyaasiyiinta odayaasha iyo xildhibaanada beesha galmah Yunis oo cabash ka ahayd habka uu maariyay magacaabista gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho beesha galmah ayaa madaxweynaha hore ugu eedeysay inuu kaga baxay balan uu ka qaaday oo ahayd inuu siin doono xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho kaas oo markii dambe uu magacaabay saaxiib ka tirsan xisbigiisa oo lagu magacaabo Yuusuf Madaane oo ka soo jeeda beesha Daawud galmah Yunis beesha iyo Daawud ayaa labaduba waxay ka watirsan beesha Wacbuulen Abgaal kulankii xalay ee ka dhacay fila Soomaaliya ayaa xubno ka qayb galay waxa ay channelka kulmiska wararka u xaqiijiyeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka garaabay arrintan isla markaana uu raaligelin buuxda siiyay isagoo ballan qaaday inuu si kale u xalin doono wararka ayaa sheegaya in markaas ay suuragal tahay in beesha ay soo qortaan xilal ay doonayaan in madaxweynaha uu ka siiyo dawladdiisa cusub madaxweynaha ayaa la sheegay inuu u ballan qaaday inuu arrintan sixi doono isla markaana xilal kale oo markaas ugu xuquuq gudi doono beesha galmah Yunis inkastoo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta beesha ay shaki weyn ay jireen sabab la xiriira inuu markaas hore ugu baxay madaxweynaha balantii uu ka qaaday ahayd in gudoomiyaha markaasi gobolka Banaadir loo magacaabo dhinaca kalena haddii aan aadno baarlamaanka maamulka Galmudug fadhi maanta shaki weyn hareeyay ayay yeelan doonaan waxaana shakigan dhalinaya ay tahay in baarlamaanka ay qorsheynayaan in muddo kororsi hal sano ah ay ugu daraan madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qorqor magaalada Dhuusamareeb waxaa maanta kulan caadi ahayn ku leh xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas iyadoona si gaar ah isha loogu hayo waxa ka soo bixi doona fadhigaasi sida wararku ay hordhaca ay sheegayaan ajendaha kulanka ayaa ah sidii baarlamaanka loo horkeeni lahaa qorshaha dib-u-eegista dastuurka Galmudug si ay ugu doodaan guddiga joogtada ee baarlamaanka Galmudug oo shirka Dhuusamareeb ku kulmay ayaa sheegay qorshaha wax ka beddelka dastuurka ee muddada ka doodayeen balse ma cadda qodobada ay diyaariyeen si wax ka beddel loogu sameeyo shakiga weyn ee hareeyay kulankan ayaa ah in baarlamaanku uu damacsan yahay si la mid ah maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed inay sameeyaan hal sano oo muddo kororsi ah iyadoo aan la ogeyn sida dawladda ay ugu falcelin doonto arrintaas xilli buuq ka dhashay muddo kororsiga Axmed Madoobe lafta garan uu taagan yahay shirka golaha watashi qaran ee magaalada Muqdisho ayaa qodobada miiska u saaran waxaa ka mid ah muddo kororsiga sameeyeen maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyadoo culayskeeda ay leedahay haddii Galmudug ay arrintaas ay ku dhawaaqdo maanta xildhibaanaduna ay ugu daraan muddo kororsi hal sano madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor isla wararka shirka golaha watashi qaran ayaan ku soo laabanaynaa maanta ayaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho shirka golaha watashi qaran hase yeeshee dood adag ayaa hareysay waxaa maanta la filayaa in la soo gabagabeeyo shirka golaha watashi qaran u dhexeeya madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa markaas diiradda lagu saarayaa arrimo ay ka mid yihiin amniga lacagta ka timid World Bank-ga oo sida la qorsheynayo la isku fahmi kari laayahay arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale maaliyadda oo muddo kororsi ay qayb ka tahay iyo sidoo kale safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada New York dalka Mareykanka inkastoo kulanka shalay uu iska furitaan iyo isxogoreysi madaxda iska ahaa yaha waxa leeyahay maanta ayaa la gudgeli doonaa qodobada ugu culus ee horyaala dhinacyada shirsan waxaana laga cabsi qabaa in arrimaha qaar ay buuq culus fadhiga markaas ay ka dhex abuuri doonaan xubnaha ku dhow shirka ayaa shaki gelinaya suurtagalnimada in maalmo dheeri ah markaas qaato shirka oo markaas waqtiga loogu talagalay 2 cisho ay ka badnaan karto
madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale la filayaa inuu markaas u duulo dalka Kenya sida uu kaga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi Kenya William Samoei Ruto waxaana suuragal ah in shirka sii dheeraado. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale goobjoog ka ah shirka. si kastaba madaxweynaha maamulka Puntland ayaa iska diiday inuu Muqdisho yimaado si uu kaga qayb galo shirka, hase yeeshee wuxuu go'aansaday in weerarada fogaan aragga kaga qayb galo, taas oo hadal heen badan dhalisay. markaana gobolka Sanaag faahfaahin dheeraad ah ayaana laga helayaa qarax xalay ka dhacay qaybihii dhexe ee janalkeena kulmiska wararka ayaan isa soo gaarin daawadayaal. haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaro gambalka furo una share garay saaxiibada meel kasta joogaan adigoo kumatiga laagina inuu reebaya aad baad u mahadsantihiin. markaana faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax xalay fiidkii ka dhacay gobolka Sanaag maamulka Puntland. qaraxan ayaa ahaa mid ismidaamin ah wuxuuna ka dhacay tuulada lagu magacaabo Milxo oo ku taala buurleyda Calaamadu ee gobolka Sanaag. qaraxa waxaa fuliyay qof iska soo xiray waxyaabaha qarxa waxaana markaas ula beegsay maqaaxi lagu shaaxo laguna qaylo ay fadhiyeen dadweyne fara badan oo shacab ah, iyadoo weerarkaas uu sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. shan ruux ayaa ku geeriyootay qaraxan halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. dadka dhaawacyada soo gaaray ayaa loo qaaday isbitaalada magaalada Boosaaso iyadoona aanay jirin cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi ismidaaminta ahaa. si kastaba deegaanka Milxo waxaa saameyn ku leh ururka Al-Shabaab ee ku sugan buurleyda Calaamadu, sidoo kalena waxaa mararka qaar ka dhaca shaqaaqooyin la xiriira qodista dahabka oo deegaanka aad loogu helo. markaana gobolka Shabeellaha Dhexe tuulooyin hoos yimaada waxaa la wareegay militariga Soomaaliya. gobolka Hiiraan deegaano ka tirsan oo lagu magacaabo Fiido ayaa la soo weeraraya waa berigii hore ee Saake in markaas ciidamada militariga ay la wareegeen. wararka ugu dambeeyay naga soo gaaraya ayaa sheegaya in ciidanka militariga Soomaaliya oo kaashanaya kooxda macluusteeda la wareegeen degmada Fiido oo dhacday xadka gobolka Hiiraan ee Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabelle. ciidanka militariga ayaa la sheegay in howlgallo qorshaysan ay ku qaadeen degmadaas iyo deegaano kale oo hoos yimaada, waxaana mid ka mid ah deegaanada kale ee ciidanka qabsadeen ka mid ah deegaanka lagu magacaabo Xaru Goloole kaas oo ka mid ah deegaanka hoos yimaada degmada Fiido. saraakiisha horkacisa dagaalka ayaa sheegay in xalay saqbarkii ay qaadeen howlgallo culus oo ay doonayeen inay ku qabsadaan degmadaas, waxaana intaasi ku dareen in ay gacanta ku hayaan deegaanadii ay xalay weerarka ay ku ekeeyeen. mid ka mid ah saraakiisha horkacisa dagaalkaas ayaa sheegay inay saaki ciidamada dowladda gudaha u galeen Fiido iyo sidoo kale deegaano kale waxay markaas isku hareereen ciidamada. sidoo kale saraakiisha ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa intaa ku daray in howlgalka ahaa mid qorshaysan oo ay doonayeen in ay kula wareegaan degmada iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Beledweyne deegaano hoos yimaada. gudahanna waana intaa wararkii ugu waaweyn aad kala socoteen janalka kulmiska wararka. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaro gambalka furo una share garay saaxiibada meel kasta joogaan adigoo kumatiga laagin inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin.